السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد جامع dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa mar walba ku kalifa inay lacagahooda ay online ku khasaaraan taasoo in arkayno barnaamijyo kala duwan oo baryahan soo baxay barnaamijyada ay ka mid yihiin CJ on Sale CJ iyo qaar kale oo cloud mining ku saabsan imakana waxa la wadaa barnaamij la yiraahdo Life Good insha Allah taala maanta waxaan doonayaa inaan dul istaago aan falaqeyno barnaamijkaasi wuxuu yahay iyo qaabka ay dadka ay u dhacayaan ay insha Allah taala dul istaagana ka wada hadli doonaa haddaan ugu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa like subscribe channelka noo saartid باذن الله taala mar walba waxaad ka helaysaa channelka wax ku anfaca haddaba intaynaan gudagelin oo shirkaddan Life Good aynaan taxliilin insha Allah taala waxaan doonayaa inaan dib ugu laabano taariikhda si aynu ogaano meesha waxana ay ka yimaadeen iyo qaabkan pyramid scheme-ka uu shaqeeyo ninka handisi qaabka Ponzi scheme-ka uu shaqeeyo waxa la yiraahdaa Charles Ponzi ayaa lagu magac daray qaabkan maanta aynu aragno shirkadaha intooda badan ee dadka dhaca ay u shaqeeyaan Charles Ponzi originally wuxuu ahaa nin Talyaaniya oo Mareykana kadib markii wadanka Talyaanigu ay xaaladiisu ay xumayd oo dhaqaale burbur ay galeen halka wuxuu ka helay chance wuxuu sidii ka ganacso warqadaha bariidka la iskugu diro istaamyadooda xidigaha yaryar ee istaamka ee lagu dhajiyo kuwaas oo Talyaaniga ay ku jabnaayeen maadaama dhaqaale burbur uu jiro lacag jaban ayuu kaga soo iibsan jiray kadibna Mareykanku keenay jiray wadanka Mareykanka gudihiisa ayuu ku iibin jiray badna wuxuu u diri jiray Yurub si uu lacag far badan uga faa'iido qaabka ayuu ku bilaabay markuu businesska uu bilaabay oo doonayay lacag far badan inuu ururiyo dadka wuxuu ugu balqaaday inay heli karaan profit gaaraya 400 oo percentage ninka cala ay taxal mashruuciisu uu fashilmay 6 bilood kadib markii uu 100,000 oo qof uu lacagtoodii uu dhacay lacagta uu ka dhacay dadkana waxa lagu qiyaasaa maanta waqtigan aynu joogno lacag gaaraysa 220 milyan oo dollar Charles Ponzi bariga uu systemka uu ishtiraacay waxa ka soo wareegay 103 sanadood imaka waqtigan xaadirka aynu joogno iyo 20 sanadood u dambeeyay haddaynu eegno Ponzi scheme-ka ugu waaweynaa ku sameeyay dadka sawirkan aynu ku aragno waxa kamid ah Bernie Madoff lacag aad iyo aad u fara badan oo dadka maalgashaday shirkadiisa uu ka khasaareeyay barigii dhaweyd ee dhaqaalaha wadanka Mareykanka 2008kii uu burburay iyo kuwa kale oo far badan haddii example aan ka soo qaadano dhinaca cryptocurrency-ga maadaama cryptocurrency channelkaygu u badan yahay waxaynu arkaynaa in halka gabadh la yiraahdo Peruja ay ku dhacday 4 bilyan oo dollar coin ay samaysay oo Soomaalida ay si wanaagsan u garanayaan coinkaas oo la yiraahdo one coinka oo xaqiiqatan dad far badan ay hanti far badan ay ku khasaareen dadka xitaa ay ka mid yihiin dad aan asxaabnahay عالم cryptocurrency xitaa haddaynu ku sii socono waxaynu arkaynaa ina ninka la yiraahdo Sam Bankman uu lacag aad iyo aad u far badan investorada uu ka khasaareeyay lacagtii tusaalayaal badan baa jira iyo dad far badan oo dadka hantidooda dhacay sanadahan u dambeeyay haddii aynu ka sii hadalno qaar kale xaqiiqatan waqti far badan bay qaadanaysaa laakiin insha Allah imika waxaan doonaynaa dul istaago qaabka u shaqeyso Life Good teamka ka dambeeya iyo website aad iyo aad muhiim ah oo la isticmaalo marka la doonayo in la baaro amba la xaqiijiyo dadka businessyada leh inay dadkani khibrad ay leeyihiin takala LinkedIn wuxuu inaga saacidayaa inaynu ogaano dadkani inay dad aamina inay yihiin inuu ka eegno taasoo eegno xitaa dadka mucaamalaadka ay leeyihiin iyo detailskooda oo dhan safxadooda rasmiga markaynu nimaadno waxaanu arkaynaa ina products qurux badan ay halka ay dhigeen teamska haddaynu tagno waxaanu arkaynaa 4 qof inay madaxda ay ka yihiin shirkadda haddii aynu eegno accountyadooda LinkedIn laanu waa ta ugu muhiimsan waana ta informationka aynu ka heli doono insha Allah inay dadkan ay sax yihiin iyo inay ku qoreen meeshan ay ka shaqeeyaan description-ka LinkedIn-ka laanu LinkedIn-ka hadii jeer qofku markuu business uu leeyahay mar walba wuxuu ku qoraa halka businesska uu madaxda u yahay meelaha kala duwan uu soo maray informationskaas oo dhan marka halkan runtii xitaa haddaynu soo dejino halkan wax informationa kama hayno madaxa shirkadda Ryan haddaynu ku xigsiino waxaanu arkaynaa xitaa asaguna inaanu wax information aanu ku jirin iyo gabadha Lisa iyadana wax information ah ma jiro account-keeda LinkedIn-ka iyo ninka u dambeeya ee asaguna sahalkan ku aragno account-kiisa wax information ma jiro marka taas waxa way arin cabsi runtii inay galinaysa waayo teamkan le waxaanu asaasanay Live Good asaasanba kuma jiraan LinkedIn-ka waana website-yada kuwa ugu muhiimsan ee mar walba businessman-yadu ay halkaas soo dhigaan businesskooda iyo meelaha ka shaqeeyaan iyo waxyaabaha ay qabteen haddaba haddaynu isla eegno productska iyo serviceyada ay qabtaan haddaynu imika taabano become a member haynu ka noqono shirkaddan amba $10 wax ku dhow yearly fee-guna wax ku dhow $100 haddii affiliate program aad doonaysid inaad gashidna affiliate compensation bay leeyihiin inuu yahay laakiin affiliate-ka sida caadiga ah marka shirkadaha aad doonaysid affiliate inaad la samaysid affiliate-na waxa weeye inaad u keenaysid dadka customer ka iibsada alaabta
laakiin halkan waxaa cajiiba shirkadaha sida Amazon amba Facebook amba shirkadaha waaweyn oo dhan mar walba markaad affiliate ka qaadanaysid waxaad u keenaysaa dad ka shaqeeya oo ka ganacsada oo iyaguna ka faa'iida meesha. laakiin halkan qaabka quraata ee aad ka faa'iidaysid waxa weeye adoo asxaabtaada keena oo halkaa lagu geliyo nidaamkii Ponzi scheme-ka ahaa ee rankiska ku xidhnaa hadna soo dhaweeyo diamond iyo gold iyo silver halkaa qof walba aad keentid marka hore 50% baa lagu siinayaa hadhowna ilaa qofka ugu dambeeya aad keenaysid 1% ayaad ka helaysaa. marka runtii waxa weeye pyramid scheme caadiya barnaamijkani iyo qaabka bonusyada ay u bixinayaan programkan iyo waxaan oo dhan waxay ku dhiseen si clear ah oo website-kooda ay ugu jirto. waxaan u arkaynaa inay ayagu xitaa videogan ay soo dhigeen YouTube-ka inuu ku sheegayaan waxaan inuu yahay barnaamij qof walba qof uu keenayo halkaa kolba dadkii la keeno laga faa'iidayo ayaga. intaas insha Allah akhiirta kusoo gabagabeynaya. runtii waa pyramid scheme caadiya oo mar walba ay kugu xidhayaan inaad dad aad keentid product la iibinayo aad faa'iido aad ka helaysid productka ma jiro. iyaguna marka billions of dollars ay urursadaan oo dadka la soo gelinayo amba dadka isdiiwaan gelinaya ay yaraadaan waxaad ogaataan maalinta inay shaashada ay ka baxayaan. sidii example-adii hore aan ku aragnay dhowr boqol oo shirkadood oo nidaamka u shaqeeya imankana xitaa dalka waxa ka jira dhowr shirkadood oo runtii aan ku soo koobi karin halkan oo isla nidaamka ku shaqeynaya oo maalin walba training dadka loo qabto raadado soo gala oo halkan ayaad ka liibaanaysaan aba ka flaxaysaan soo gala. marka akhyaarta insha Allah taala ka taxadura qaabyo fara badan oo amaana oo loo maalgashto ayaa jira insha Allah taala silsiladan waan soo wada dhawaan halka kala socda خير بدمني رجيي. السلام عليكم ورحمة الله.